بسم الله الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد والله شرفت لك سود هذا waxaan ka hadlaynaa isha iyo calaamaadkeeda isha xasidka ah iyo calaamaadka lagu garto calaamada u horeysa waxaa weeye qofku wuxuu dareemayaa madax xanuun aad u badan markasta oo kanin laqo xanuun baabiye ah wax yar kadib saacad kadib oo laba saac kadib haddana xanuunkii uu dareemaya madax xanuun tiro badan ayuu dareemaya calaamada labaad waxaa weeye culays garbaha qof ka saaran ayuu dareemaya culays badan qoorta oo yacnaha aad moodayso inuu muruqa kaga taagan yahay caajis fara badan yacnaha wuu dareemayaa calaamada afraad waxaa weeye hilmaan waxbuu meel dhigayaa wixii wuu hilmaamayaa marka hilmaan fara badan soo harto macnaheed waxaa weeye qofka wuxuu dareemayaa il xasid ah calaamada shanaad waxaa weeye bog xanuun qofka boga ayaa aada u xanuunayo marka haddaa isku harto bog xanuun macnaheed waxaa weeye il xasida ayaa ku hayso calaamada shanaad waxaa weeye calaamada shanaad waxaa weeye qofka in uu maaragtay naxayo oo yacnaha uu cabsi dareemayo marka shanta calaamad aad isku harto waxaa weeye il xasid ayaa ku hayso insha allahu assalaamu calaykum waraxmatu